Marka aad ka cabanayso caajis badan iyo wax xiiso leh oo aad daawato, waxaa jira qof indhala oo ku ducaysanaya in araggiisii uu soo noqdo. Marka aad ka cabanayso in cuntada lagu keenay aysan dhadhan fiican lahayn, waxaa jira carruur gaajo ku seexda habeen iyo maalin. Marka aad ka cabanayso dhib yar oo ku soo gaaray, waxaa jira qof dhaawac ah oo aan haysan wax dhaya. Marka aad ka cabanayso war lagaa sheegay ama aflagaado laguu geystay, waxaa jira qof xabsi ugu jira dulmi iyo dembi uusan lahayn oo lagu eedeeyay. Marka aad ka cabanayso shaqadaada, waxaa jira qof Alle ka barya habeen iyo maalin inuu shaqo la'aanta ka saaro oo xitaa mushaar aad u yar uu ku shaqeeyo. Marka aad ka cabanayso daahyada qolka kuugu xiran ama alaabta guriga kuu taal, waxaa jira qof hooy la'aan ah oo aan haysan wax uu huwado. Marka aad ka cabanayso adiga oo caafimaad qaba in hurdo kaa imaan weyday, waxaa jira qof isbitaal jiifa oo xanuun la soo jeeda habeenkii oo dhan. Marka aad ka cabanayso magaalada ama dalka aad ku nooshahay, waxaa jira qof aan maanta soo kicin si uu u arko oo loona kaxeeyay god yar oo mugdi ah. Haddaba jooji cabashada. Xaqiiqdii waxaad ka cabanayso waxay barako iyo barwaaqo u tahay qaar kale oo badan. Noqo mid mahad celiya oo dheh alxamdulillaah.